ma sugi karo inaan dadkayga Argentina kula dabaaldego koobkan ayuu Lionel Messi yiri ilbiriqsiyadii ugu horeysay oo uu noqday wiil dalkiisa u qaaday koobka adduunka. kubadda cagtu way ka badan tahay dheel oo kaliya jaceylka kubadda cagta ay u qabaan dadka reer Argentina waa wax ka baxsan caadiga. calanka Argentina ee ka kooban midabada cadaanka iyo buluugga oo lagu laray loogada midabka jaallaha ah waa midda hadda ugu sarreysa caalamada caalamka oo dhan. waxaa lagu xasuustaa in dalkani ay ka soo baxeen haliyeeyo waaweyn oo qurxiya kubadda cagta. tusaalooyinka ugu weyn ee kubadda cagta marka la joogo laga bixin karo Argentina waa Lionel Messi iyo Diego Armando Maradona. kulanka ugu weyn heerka kooxeed ee adduunka ayaa laga dheelaa dalkani waa ciyaar u dhaxaysa Boca Juniors iyo River Plate. kulankaasi xamaasadda taageerayaasha Argentineska ah dad ayaa ku dhinta dadna waa ay ku dhaawacmaan. heer ay gaartay in kulankaasi laga soo raro dalka Argentina laguna ciyaaro gudaha Yurub. biyadhaca sheekadeenna waa in Argentina kubadda cagtu ay u tahay balwadooda koowaad waxaana mar kale ay la soo muuqdeen dhacdooyin taageeranimo kubadda cagta ah oo ka yaabiya cid kasta. habeenkii Argentinesku ka soo gudbeen xulka lagu magacaabo Croatia oo ay finalka tageen malaayiin qof ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha waaweyn oo ay dadku kulmaan gudaha Argentina. wadooyinka ayaa u muuqday kuwa xirmay laakiin sheekadu way ka sii dartay markii koobka adduunka ay ku guulaysteen Argentineska. Messi uu kor u qaaday koobka adduunka uu weligiis raadinayay inuu maalin uu ku guulaysto. isbuucan wixii ka dhacay kubadda cagta qaas ahaan wixii ka qabsoomay gigada Lusail waxay ahaayeen wax aan weligeed la iloobi doonin. wiilasha Argentina ayaa ka farxiyay malaayiin Argentines ah oo dalkooda jooga iyo malaayiin kale oo Lionel Messi la jeclaa inuu koobka adduunka ku guulaysto. Buenos Aires waa goob caan ku ah in dad badan ay isugu soo baxaan marka la joogo Argentina. fagaarahan firaaqo ma uusan noqon 4 maalin ee la soo dhaafay. dadka oo dhan waxay sugayeen inay arkaan Lionel Messi oo koobka kor u haya isla mar ahaantaana ku soo laabtay dalkiisa. waana wixii dhacay saacadihii la soo dhaafay. garoonka diyaaradaha ee magaalada Buenos Aires ay ciyaartoyda xulka Argentina ka soo degeen 2 habeenimo ee saqda dhexe ee saacadda dalkaasi. halkaasi ay ku sugayeen 100,000 oo taageerayaal ah oo buux dhaafiyay wadooyinka caasimadda dalkaasi. la yaab ayuu u ekeyd in dadku aysan kala jeclayn inay dhibaato nafsadooda soo gaarto. dad badan ayay dhaawacyo xooggan ka soo gaareen farxadda darteed iyagoo dabaaldegaya kadib markii ay fuuleen meelo aad u sarsareeya. gawaarida ayaa jiray shakhsiyaad kale oo xamaasad darteed wadooyinka waaweyn ee waddanka Argentina ku soo cararay markii koobka lagu guulaystay. muuqaalada lagu faafiyey baraha bulshada waxay tilmaamayaan in farxadda koobka darteed dad badan ay u dhibaataysan yihiin. xidigaha Argentina oo ku guulaystay koobka adduunka ayaa markay ka duuleen Qatar waxa ay tageen magaalada Rome ee dalka Talyaaniga halkaasi oo ay ku tababaranayeen ka hor intaysan tartanka aadin. duulimaadkoodii ugu dambeeyay oo ay halkaasi kaga tageen waxay ku gaareen Buenos Aires. xitaa nafsadooda ay qatar u galiyeen siday ugu faraxsan yihiin inay koobka guulaystaan. Lionel Messi iyo 4 ciyaartooy oo kale ayaa dusha sare ka saarnaa baskii ciyaartooyda Argentineska waday oo ay kula dabaaldegayeen jamaahiirtooda. xidigaha waxa ay kala ahaayeen Leonardo Paredes, Rodrigo de Paul, Angel Di Maria, Nicolas Otamendi iyo Lionel Messi. 4 ciyaartooy si dirqiya ayay ku badbaadeen. waxay ku dhawaadeen inay gaariga ka dhacaan kadib markii ay arkeen wax ku qasbi karay inay ka dhacaan gaariga laakiin hoos ay isu gaabiyeen si aysan xariggaasi uusan kaga toorin gaariga. muuqaallo laga soo qabtay Buenos Aires waa kuwa aan weligood la iloobi doonin quruxda darteedna aan indhaha laga qarsan karin. calanka dalka ayaa halka sare ah. xidiguhu naftooda ayay qatar u gelinayaan taageerayaasha inay la farxaan halka taageerayaashuna aysan kala jeclayn dhibaatooyin soo gaara iyagoo wax walba u samaynaya si ay farxadda ula qaybsadaan wiilasha koobka u soo qaaday. si kastaba ha ahaatee koobkii waxaa la geeyey Argentina 32 waddan ayaa ku wada tartamayay mid walbana wuxuu doonayay inuu koobka qaado. waddankii saadaalinta ugu badan haysta ayaa ku guulaystay. waddankii markii ugu horreysay laga badiyey ayaa koobka kor u qaaday. Messi iyo Ronaldo midkood inuu koobka qaado ayaa la filayay. waxaa dhacday in ninka lugta bidix ku ciyaara uu koobkaasi ku guulaystay. wuxuu koobku bilowday Cristiano Ronaldo aan kooxaysan waxaana uu koobka dhammaaday Messi oo koobka adduunka ku guulaystay iyo Ronaldo oo aan weli kooxilin. dhammaan haliyada kubadda cagta waxay u hambalyeeyeen Lionel Messi iyo saaxiibadiisa. adiga ahaan sama u aragtaa in quruxda kubadda cagta ay tahay in Messi uu koobka adduunka ku guulaysto.